عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabnaa maanta inaan duubno dukaanka kaliya ee Soomaalida ay ku leedahay wadanka Jarmalka khaasatan magaalada Frankfurt ku soo dhawaada dukaankan waa magaciisa oo kaasa waa meesha kaliya Soomaalida ay ku kulmaan hadii aad Frankfurt Soomaalid waa meesha kaliyana ay dadka ay maaragtay isku balansadaan ay ku sheekaystaan halkan waa meeshii laabtay wax yaalin iridan meesha waa loo talagalay inay dadka ku fadhi dir ku sameeyaan halkan inay maaragtay ay maaragtay aad u guuroon yahay ku sheekaystaan waxa ku yaal meesha ku sawiran sawiro hore oo maaragtay taariikhi ah niman hore sida Samatar haweeney dalka Soomaaliya ay kala kulmaayo niman maaragtay dhigooda ah oo ajaaniba geeli Soomaaliya isla sawiradii lagu xarnay ama lagu kuwana waa ku ciyaartoydii Soomaaliya ku jirtay xul gabdhaha qaranka ku saawato 38 iyo waa maaragtay waqti hore ah الله مستعان إن عبد الرحمن هذينا قصنده إن كان حالي هذا نون والله فيه هراء هي وحبها برينيو نعم باش أنا ماركتي كرسي كرسي حبانا وكذا يا كان صدق باش العقد اللي أبي حيو كورة كان muxuu inii qabtaa baankani waxyaabo badan buu noo qabtaa service badan buu noo sameeyaa cuntooyinka Soomaaliya ka helaa diilaha guriga meel lagu nasto weeyaan waa lagu soo dagaa Soomaalidu geeska gees Jarmalka waa ninka nagu hayo weeyaan hafaana waa gartay kawar hadii la xiro maxaa maaragtay cawaaqib maxaa ka dhalan lahayd baankani hadii la xiro wadanka waa iska tagaynaa waxa ka dhalanaysa barakicin baa dhacaysa abaaraha dhacaya halaag baa dhacaya ma garatay يلا انت كبر اوكي ونصها مستر لونا لا ابانا قوي لكي دكانك اسك لها وكان ابانا يا حقه وجهه بخي ما دكانك ما تحيسين u sameeynayna marka maxaa la dukaanka maxaad ku gadaa maxaad ku sameeysaa maxaa dadka shacabka ay ku daawanaya aan leedahay maaragtay waa iman karaan وقتي صلاة دكنا يقول حني صلاة دكتور لكن حقائق إيه أفرح بقى مارت أنا كتور نونا يقول كيل نون يا نون فوق نون قاب كلها هذا ما يقال مارت اثنين مارت انتهى مارت بحين قد بكراي ما كان Soomaaliyeed waa taariikh كول وهذا هو واضح ماشي waxa uu sameysay in lagu sheekaysto maartay fadhi ku dirig jamaacada dadka cusub dadka kale ayaan iska caawiyaa صح meeshan Soomaalida u dhaafo cusub صح isaga fadhiyaan صح u timaado community-gan صح iska fadhiistaan internet-ka galayna galo صح ma fahamtay waxaan rabaa ku sameyn karaa meeshan laakiin mar raba inaan si ijaaro laakiin Soomaalida u sameeyay ما عندي حدا ماشي إيجار لي واحد كسمة لكن عسل عاك أسوق لي لكن دي بعتذوق وقبصنا له وحش ومالي كاسو هناك في استاجايان هناك استاجايان ملك اللي في استانا ملا ملك لهم أفران أو مالت يتي كلام ملا إن شاء الله مركع عاوناتك كمتها واقرت محا علاقتها قد محكمة وحي ماشي يا الوجود ده رجال فيري وحنا كده الملك كان هرقان وكل أحيان وحول بيان دي لمن كيان صبرت ووجد ده تاريخ ووجد ده سبورت ووجد ده سفاع دولتي هو ووجد ده أدي دولتي الدبوات حسوسين دار ودتك لفيتك يقارا أنا كنت كده دبانا دتك دباتين وكا وحينين الصومالية يوم كان وأنا مع الحبة حبة أصورنا على شربات كسير ري وبديه الصومالية وقلت إذا قلت كان كفري قلت لا بكون سيد حيان فرنا إلا حد نوعي فرنا ما شاء الله ما شاء الله أدبا وما سنت عاي وكاز وعاو من الدكان لا حنتي أسكلا مدن حفانا كيلا بعد عند فرنا هاي كور مش محكو دريمي سامك مش فلسيد آد مارتي كره وكون عتيلة يسوع وكلا يو وكور حالة ده أكثر كروقا يا أكثر كروقا عدكية أوكي اوكي waxaan ku yiri bal ka waran marka meesha fadhiisid beel Soomaali ku furan tahay aad lagu soo dhaweynayso bus bur iyo sambuus aad ku cuni kartaad helayso ka war dareenkaaga adeer marka hore waa
ساقدنا لعبتي سوى هذا صح هو marka hore waan ku salaamayaa salaan qaaliya qiimada qadarinna baan ku salaamayaa ما شاء الله marka labaad meeshan waxa weeye meel u furan ina Soomaaliyeed oo la yiraahdo Cabdi Xuseen Ismaam ay u furan tahay صح waa meel ku ganacsado صح umada Soomaaliyeed halkan waxa soo wada dhoobtay halkan dhibaatada ku haysana halkaan u sameeyay صح say u fadhiistaan ugu nastaan صح وإيشاء وعبان وإيشاء وعبان ما يبغوا قرعان سيف يعني ما يبغوا نصام بيبغوا سمية صح كنا سوداوية وحكروا سمية ورجنا إنه ضد كماشين شوقة أو كعاوية حاجة محاولة الجبان كأيو أو دليل ركنت ويأفك قرنيس أو قدرة أو ده لو سوت الجمع وهالكن محاولة سيلو عاوية دبعتها دليل هذا حيسمت هالكن كنت من هواوجا iyo dhibaatadu soo qabsatay dalkoodii iyo dadkoodii ba soo baabay marka anu ku ahay nin oday oo daa dhowr iyo 80 baan jiraa meeshan muddo badan baan joogay ayaan waan aad baan ugu xanuunsaday ama kana waan xanuunsanahay ilaahayna waxaan ku baryaynaa xanuunka ilaahay naga qaado wixii jira oo dhan ilaahay caafiyo wixii caafimaad qabana caafimaadka oo taab uga dhigo wixii dhintana Allah u naxariiso walaalahay dalbaanu ka nimid barwaaqahayo caafimaad qabo caafimaad badan oo nabada oo aan hanraad iyo gaajiyo cudur iyo caajis midna aan lahayn baanu ka nimid ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay nabad nagaga dhigo waddankayaga isaga bayna hordhan oo aanu soconnaa ninkii naf la gaara isaga baanu tagaynaaye ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu waddankayaga nabad ilaahay nooga dhigo waxaa kaloo ku sheegayaa Soomaalida joogta qurbaha dhibaato badan baa haysata oo aan wax yar ahayn oo wax badana oo aad iyo aad umada Soomaaliyeed qaasan ku haysata qurbaha hadday yihiin dhalinyaro hadday yihiin hadday yihiin gabdho hadday yihiin wiilal hadday odayaal iyo hooyo yihiin dhibaato badan baa halkan ku haysata oo aan soo koobi kareyn waxaana ilaahay ka baryayaa mar kaleeto dalka iyo nabada iyo anagoo nabada inaanu mar wada ku dhano aan Allah weyn ka baryo ما شاء الله أدبا ما waxaan leeyahay oo kaleeto Cabdi halkan ku soo dhaweeya dadka u yimaadeen Soomaalida kuraasta u dhigay halkan ku yiri ku nasta kuna quraacda waxna ka cabba waxna ka cuna halkan ku yiri waxaan leeyahay isaguna waa mahadsan yahay baan leeyahay adiguna waad mahadsan tahay in yare dhalinyaro wanaagsan doonaya inuu wax faa'iideysto waxna fahmo ayaad ilaagtahay waxaan leeyahay in wax fahmo ilaahay ka dhigo dadkiisa diintiisaba wax u fahmo ilaahay ka dhigo kulay ما صنت هذا ما صنت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا تكاغو عكمل waxyaabo lagu gado bariiska cabitaanada ku jira cagaga la qaso la marka وكو كاسا موغانينا وتكون عصري أنا حانا لا هاي وعدفتا عكتا أو إذا له نبت قليو